بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. حلقadan waxaan kusoo qaadanaynaa sakaatulfitriga iyo axkaamteeda iyo wixii ku soo arooray oo nusuus kitaabka iyo sunnada ah. Sakaatulfitrigu waa sadaqo waajib ah markii bisha Ramadaan ay dhamaato in la bixiyo ay tahay shukran lillahi subhanahu wa ta'ala. Ilaahay noo fududeeyay maaragtay bisha Ramadaan inaan soonno oo aan caabudno loogu shukrinayo, iyo sidii xadiidka aan ku arki doono nabigeena sallallahu alayhi wasallam ay tahay qofkii mu'minka ah wixii ka dhacay bisha Ramadaan ee laqwi iyo rafath iyo gafaf iyo maarag bini'aadamku iska gaf badan yahay, waa iska maaragtay dambi badan yahay, wixii ka dhaca in ay tuhuratan lisaa'im buu nabiga sallallahu alayhi wasallam ay daahiriso wixii ka dhacay, iyo tu'ma lil masaakiin, masaakiinta in la quudiyo. xadiidka waynu akhrin doonaa insha Allah ta'ala. Marka waa zakadaas waajibka, waxayna waajib ku tahay qof walba oo muslim ah sida xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ku sugan. waa waajib, waxayna waajib ku tahay qof kasta oo muslim ah, ha yaraado ha weynaado, lab ha ahaado, dhadig ha ahaado, xor ha ahaado, addoon ha ahaado, qof walba oo muslim ah waa in laga bixiyo oo uu bixiyo. qofkaas oo heli kara quudkiisa wixii uu cuni lahaa maalintaas ciidda iyo habeenkeeda, hadduu haysto waa inuu wixii ka saa'ida u bixiyo. hadduusan haysan marka wax cuni lahaa isaga kuma waajibtay, waa la siinayaa maaragtay. xukunkeedu marka saas weeye. nabiga ayay ka sugnaatay sunna saxiixa, waana ijmaac. nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidkii Cabdullaahi ibn Umar sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri, Cabdullaahi ibn Umar wuxuu yiri farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam, nabiga ilaahay wuxuu waajib ka dhigay zakat alfitri, zakada fitriga saacan min tamr aw saacan min aqid aw saacan min sha'ir ala al-abdi wal-hurr. farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam zakat alfitri saacan min tamrin aw saacan min sha'ir ala al-abdi wal-hurr والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. حديث البخاري مسلم بوريين. marka xadiidkaas axkaamta ku jirta waxa weeye kow inay ay waajib tahay oo nabigu waajib ka dhigay, labo in ay qof walba ay ku waajibayso, qof yar iyo qof weyn, qof dhadig iyo qof lab ah, qof xor iyo qof adoon ah, iyo waqtigii la bixinayay xadiisku uu sheegay inta aan salaada la aadin waa in la bixiyo maaragtay. xadiid kale ayuu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam qofkii bixiya salaada dabcan loola jeedo waa salaadii ciidda, intaan la aadin ka hor qofka bixiya waxay u tahay zakaat maqbuula oo zakaat alfitr ah maaragtay. qofkii kadib bixiya laakiin waa sadaqa min sadaqaat buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam, zakaat alfitr ma noqonayso. xikmadda ka dambaysa in la bixiyo hadaaytana waa ishaarnay, laakiin waxaan akhriyaynaa xadiidka Cabdullaahi ibn Cabbaas ee saxiixa ahaa. nabigu uu yiri sallallahu alayhi wasallam farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam zakaat alfitri طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. oo macnaheedu yahay nabigu wuxuu waajib ka dhigay in zakaatulfitri la bixiyo markii bisha Ramadaan ay dhamaato, si ay qofkii soomay muslimka ahaa wixii ka dhacay laqwi, waxa weeye hadallada aan habboonayn maaragtay dembi keensanaya, waxyaalaha yeerarka qof ka dhaca, wixii dembi weyna toobad buu baahan yahay ayuu ilaahay ku daahirinaya. waxaa la rabaa qofkii isagoo daahira inuu maaragtay soonku u dhammaado. iyo tu'ma lil masaakiin, dadka masaakiinta in la quudiyo maalintaas laga farxiyo ayaa loo baahan yahay. xikmadda marka dambaysana waa taas weeye, oo labadaas gool ama labadaas hadaf ayay zakaatul fitrigu ayay taxaqiijinaysaa ama ay keensanaysaa, oo ah in qofkii soomanaana dunuubtii iyo wixii ka dhacay oo naqsi soomkiisa u keeni lahaa ay maaragtay laga dahiro, iyo in dadka masaakiinta ah in laga farxiyo oo maalintaas la siiyo. meeqa la bixinaya, miqdaarka qadarka la bixinayo muxuu yahay? nabigu saac, sida xadiidka daayito aynu arkaynay, saacan nabigu wuxuu farad yeelay, waa tuu xadiidkii ahaa maaragtay daayito aan akhriyayna saacu marka waa maxay? saacu waa weel wax lagu beego. hadda markii kilogram loo bedelo waa 2 kiilo iyo bar iyo wax yar
ilaa 3 kiilo in la bixiyo ayaa fiican. waxa la bixinayana waa quutul balad, wax beledka sida caamka laga cuno oo waxyaalaha loo badan yahay in lagu qadeeyo ama la cuno. hadda sida loo badan yahay caalamka siba Soomaalidu waa bariiskaas la bixinaya, haruur waa la bixin karaa, digir waa la bixin karaa, wixii adigu quudka loo badan yahay ayaa la bixinaya. maaragtay qadarka laga bixinayana waxa way 2 kiilo bar, hadaa 3 ka dhigtidna afdal weeye, saas ayaa fiican. maaragtay waqtiga la bixinayo hadaa aytan waa soo ishaarin 2 waqti ayay leedahay. waqti waajib ay tahay in la bixiyo waa qabla salaat al-ciid, intaan salaada ciid aan soo bixin ka hor waa inaad bixiso, waa waajib. iyo waqti waati xadiidka daayta ishaarin man addaha qabla salaati fa hiya zakatun maqbula bi nabi sallallahu alayhi wasallam wa man addaha ba'da salaati fa hiya sadaqa min as-sadaqat. iyo waqti ay culimadu ay dhaheen waa waqti jaa'is ah in la bixiyo oo maaragtay inuu qofku bixiyo maalin ilaa 2 maalmood ka horba intaan la gaarin ciida, in siba dadka loo diray hadda Afrika iyo dadka baahan loo dirayo. saxaabadiina saas ayay sameyn jireen oo saxaabadii ayay ka soo aroortay inay sameeyeen. yaa la siinayaa zakaatul fitriga, waxaa la siinayaa hadduu alla ku roon yahay masaakiinta iyo fuqarada ayaa la siinaya. dadka masaakiinta iyo fuqarada ayaa la siinaya. yaa bixinaya qof walba ayaa bixinaya, waliba qofka mas'uulka ayaa bixinaya oo reerka mas'uulka u ah. wuxuuna ka bixinayaa naftiisa, xaaskiisa, caruurtiisa haddii caruur yaryar yihiin oo aan shaqaysan ay yihiin, iyo cid kasta oo ay waajib ku tahay inuu isagu biilo. haddii aabihiis iyo hooyadiis uu biilo oo ay masaakiin yihiin uu ka bixinaya. haddii dad kale uu biilo oo guriga la jooga uu ka bixinaya, wahaakada. marka zakaatul fitriga axkaamteeda intaas ayaanu ku soo koobaynaa. dadka badana intay ka hoos baxda bay salaadii la tukaday ayay soo ordaan. waxaanu aad iyo aad ugu boorinaynaa dadka muslimiinta ah inay iska bixiyaan inta aan la gaarin salaada ciida, intaan la gaarin inay zakaatul fitriga bixiyaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naga aqbalo acmaasheen saalix ahayd, soomkii iyo salaadii iyo qiyaamkii iyo ducadii iyo zakaatul fitriga. ilaahay naga aqbalo. hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wabillahi tawfiiq.